بسم الله الرحمن الرحيم كل wanaagsan khiyaarta nala socota meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo qubanaha caawa iyo barrow show qodobada aan idinkugu hayo oo ah kuwa xiiso leh waxa kamid ah dawladda Turkiga iyo hogaamiyahooda Recep Tayyip Erdogan ayaa mar kale ka naxinaya wadamada reer galbeedka iyo sidoo kale nidaamka Israa'iil kadib markii diyaaradda TB3 Bayraktar ay ku dareen qalabka ciidamada dalka Turkigu ay isticmaali karaan diyaaradan oo ah noocan duuliyaha wadin isla markaana kamida kuwa ugu horumarsan ee adduunka ayaa waxay noqonaysaa tallaabo cusub oo warshadaha wax soo saarka militariga wadanka Turkigu ay ku dhaqaaqeen isla markaana ay ku qalabeeyeen ciidamadooda xilli xiisada Israa'iil iyo u dhaxaysa Turkiga ay cirka isku sii shareerayso isla markaana laga baqdin qabo labadaasi wadan inay ku loolamaan gobolka bariga dhexe Erdogan tan iyo markii uu talada yimi waxa uu awood saaray dhismaha ciidamada qaranka ee wadankaasi iyadoo saameynta military iyo mid siyaasadeed ee adduunka Turkiga uu ku leeyahay aad u sii kordhayso haddaba astaamaha diyaaradan ay la gaar ka tahay iyo waxyaabaha laga filan karo fagaarayaasha dagaalka maxaa kamid ah barnaamijka ayaan ku faaqidayaa haddii uu Rabbi saamaxo inta aan wada joogno aqalka Kremlinka ee wadanka Ruushka looga arrimiyana waxa uu ku dhawaaqay in mar kale ay suuragal tahay in ay is arkaan madaxweynayaasha wadamada Ruushka iyo Mareykanka Donald Trump iyo Vladimir Putin kadib markii labada wadan uu mugdi soo kala dhaxgalay wixii ka dambeeyay wada hadalkii iyo kulankii ka dhacay Alaska oo Mareykanka 15 bishii aynu ka soo gudubnay xilli xiisada gobolka aan iraahday ama dagaalka u dhaxeeya Ukraine iyo Ruushka uu cirka isku sii shareerayo isla markaana wadamada Yurub iyo gaashaanbuurta NATO ay muujinayaan walaac xor leh oo ku saabsan nabadgelyadooda kadib markii la ogaaday gantaalaha Ruushka in ay 10 daqiiqo oo kaliya ay ku gaari karaan dhammaan wadamada Yurub haddaba maxay ka wada hadli doonaan maxayse suuragal miiska in la soo wada saaro wadanka jamhuuriyadda islaamiga ah ee Iran madaxdiisu waxay la kulmeen kormeerayaal sare oo ka socda hay'adda atomikada qaramada midoobay ee IAEA loo yaqaano taas oo iminka wada xaajoodkooda uu dib u bilaabmayo arrintani waxay ka dambeysay kadib markii dawladda Iran ay si weyn u dhalishay hay'addaasi wixii ka dambeeyay weerarkii lagu qaaday gudaha wadankeeda gaar ahaan isla markaana duqeynta lagu sameeyo warshadaha Natanz Isfahan iyo Fordo oo kamida meelaha wax soo saarka nuclearka ee wadanka Iran hay'adda waxa hore loogu dhaliilay in ay bixisay xogo sirdoon oo suuragal ka dhigi karaya Iran in weerar lagu qaado hadda gobolka bariga dhexe ayaa u muuqanaya in xaaladiisu ay aad u adag tahay dhinacyadana waxa ay wali sameynayaan dhaqdhaqaaqyo kala duwan qodobadaasi wararkii ugu dambeeyay diblomaasiyadda iyo xogtii magaalada Gaza ayaan idin la wadaagayaa khiyaarta inala socota ku soo biira YouTube-ka oo subscribe saara haddii aad baraha kale ee bulshada naga daawanaysana fadlan nagu soo biir muuqaalkana la wadaag saaxiibada aad baad mahadsantiin ma ogtahay in dhakhtar Shaafici Aadan Dirir loo aqoonsaday dhakhtarka ugu wanaagsan qaliimada dalkeena Soomaaliya ahna dhakhtarkii ugu horeeyay ee wax ku qala qalabka casriga ah ee laparoscopiga ama laserka maalin waliba wuxuu heega kugu yahay isbitaalka Shaafici ee magaalada Muqdisho ee hore u gaar aan ku horeeyay dalka Turkigu waxa uu sameeyaa tilaabooyin ashqaraar leh oo dhinaca militariga loo qaaday oo saameyn ku yeelanaya wadamada adduunka gaar ahaan kuwa ay ka dhaxayaan loolanka iyo siraaca diblomaasiga ah iyo waliba kan militariga marka la fiiriyo dhaqdhaqaaqyada dawladda Ankara ay sameynayso saacadihii la soo dhaafana waxay noqdeen kuwa xiisahoodu aad u kordhayo militariga wadanka Turkiga ayaa ku dhawaaqay in qalabkooda gaashaandhigga uu ku soo biirtay diyaaradda loo yaqaan TB3 Bayraktar oo kamida wax soo saarka shirkadda Baykar ee wadanka Turkiga laga leeyahay arrintan ayaa waxay noqonaysaa mid saameynteedu ay aad u sii kordhayso isla markaana walaac ku abuuraysa wadamada galbeedka iyo sidoo kale nidaamka Israa'iil ee hadda gadofalka ka geysanaya magaalada Gaza oo dad fara badan oo rayid ay ku dhinteen dawladda Turkiga waxay ku dhawaaqday in diyaaradan loogu talagalay in kor loogu qaado awoodda ciidamada qaranka isla markaana ay si weyn u canaanato cid kasta oo ay Turkigu u arkaan inay ka soo horjeedaan danahooda haddaba diyaaradan maxaa si gaar ah loogu yaqaanaa telefishinka TRT qaybtiisa afka Carabiga ee wadanka Turkiga ayaa si gaar ah warbixin dheer uga qoray diyaaradan iyo qiimaha ay ku fadhiso
warbixintuna waxay ku bilaabanaysaa sidan. wasaaradda gaashaandhigga ee waddanka Turkiga ayaa ku dhawaaqday in diyaaradda aan duuliyaha lahayn ee dagaalka ee Bayraktar TB3 ay si rasmi ah uga mid noqotay qalabka ciidamada qaranka ee dalka Turkiga kadib markii si buuxda loo dhameystiray tijaabooyinkii habraacyadii loogu talagalay in loo adeegsado. afayeen u hadlay wasaaradda gaashaandhigga oo lagu magacaabo Seki Atuku ayaa shir jaraa'id uu ku qabtay Ankara ku sheegay in tan iyo markii ugu horeysay ee diyaaradan casriga ah lagu daro awoodaha militariga ah waxna uu xusay in tallaabadan ay calaamad u tahay wejiga cusub ee horumarinta awoodda ciidamada qaranka waddanka Turkiga oo hadda u muuqanaya inay saameyntoodu aad u sii kordhayso. Bayraktar TB3 oo ay soo saarta diyaaradda Baykar waa diyaaradii ugu horeysay ee aan duuliyaha lahayn ee dagaal oo leh baalal la laabin karo taas oo suuro gelinaysa in ay ka degto ama ay ka duusho maraakiibta leh meelaha ciriiriga ah ee diyaaraduhu ay fadhiistaan sida markabka mucjisada ah oo ay dowladda Turkiga u dhawaan dhisayso ee la yiraahdo TCG Anadolu kaas oo qorshihiisu yahay in uu noqdo markabka ugu horeeya ee dunida ee sida kaliya diyaaradaha noocan ah ee drone-iska qaada. haddaba astaamaha diyaaradan ay leedahay ayaa ah mid si weyn u soo jeedanaya khubarada militariga iyo waliba dalalka qaar ay hadda bilaabayaanba inay daneeyaan. diyaaradan ayaa la sheegay astaamaheeda sida warbixinta ku xusan inay tahay mid xambaari karayso culays aad u badan oo hub ah isla markaana ay qaadan karayso gantaalo ka xaddi ballaaran kuwii hore ee diyaaradaha Bayraktar ay qaadan jireen ee aan duuliyaha lahayn. waxaa sidoo kale ay awood u leedahay waqti dheer oo aad u fog inay duulimaad geli karayso isla markaana hawada ay ku jiri karayso waqti xoogan. waxay isticmaalaysaa isgaarsiin satellite oo suuro gelinaysa in laga hago meelo fogfog oo toos aan loo arki karin iyadoo la adeegsanayo hanaan satellite oo ay dowladda Turkiga ugu tala gashay diyaaradaasi in loo isticmaalo. diyaaradan waxa ay ku qalabaysan tahay hub casri ah iyo nidaamyo sirdoon iyadoo ka dhuuman karaysa cadowga waxaana kormeer iyo weerar isku dhafan ay ku qaadi karaysaa goobaha ay suuragalka tahay in ay beegsato iyadoo aan la dirin sahan aadana ah sida warbixinta diyaaradan lagu sheegay. diyaaradan ayaa waxaa loo qorsheeyay inay ka duusho kuna soo degto markabka la yiraahdo TCG Anadolu iyadoo isticmaalaysa baa la yiri garaadka macmalka ee AI-ga loo yaqaano kaas oo ku salaysan awoodda xooggan ee dowladda Turkiga. wasaaradda gaashaandhigga waddankaasi waxa ay sheegtay in ku biirista TB3 ciidanka dhulka ay si weyn u xoojin doonto awoodda Turkiga ee dagaalada aan loo sinayn iyo kuwa caadiga ah labadaba isla markaana diyaaradan loo adeegsan karo jihooyin kala duwan. dhammaan tijaabooyinka lagu sameeyo diyaaradda TB3 ee markabka TCG Anadolu ay leedahay shirkadda Baykar ayaa ku dhawaaqday bishii Juunyo aynu ka soo gudubnay si guul leh inay arrintaas u dhacday iyadoo diyaaraddu ay samaysay duulimaadyo degan oo buuxa oo si otomaatig ah u adeegsanaysa ama si toos ah baa la yiri garaadka macmalka ee AI-ga loo yaqaano. haddaba diyaaradan ku soo biiritaankeeda qalabka ciidanka ee waddanka Turkiga ee gaashaandhiggu waxa ay muujinaysaa xilli xiisada u dhaxaysa Tel Aviv iyo Ankara ay cirka isku sii shareerayso. shalayna Turkiga uu ku dhawaaqay in 100,000 oo askari uu geyn doono meel ku dhow jasiiradda Qubrus si ay uga hortagaan saaxiibada garabka siin kara nidaamka Israel haddii ay suuragal tahay dagaal inay la gasho. meelaha sida gaarka Turkiga ay uga baqayaan oo kamid ah xulufada Israel gacan sii karta waxaa kamid ah waddanka Greega iyo sidoo kale jasiiradda Qubrus ee madaxa bannaan taas oo ay suuragal tahay inay isticmaalaan sirdoonka nidaamka Israel haddii xaaladda dagaalku ay sii kululaato isla markaana labadan quwadood ay isku farasaaraan gobolka bariga dhexe. madaxweynaha waddanka Ruushka ayaa afayeen u hadlay waxa uu ku dhawaaqay inay suuragal tahay in mar kale ay kulmi doonaan Trump iyo Vladimir Putin iyadoo aan si rasmi ah loo xaqiijin goobta ay ku kulmi karaan intaba. afayeenka u hadlay aqalka Kremlinka ee looga arrimiyo dalka Ruushka ee Moscow oo lagu magacaabo Dmitry Peskov waxa uu yiri arrintani waxay ka dambaysaa in ujeedadu tahay in wada hadal dhameystiran la galo si xal looga gaaro dagaalka u dhaxeeya Ukraine iyo dalka Ruushka.
wadahadalkan ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyadoo Trump uu sheegay in kulankii ka dhacay Beijing ay isugu yimaadeen 26 wadan isla markaana ay soo bandhigeen ciidamada Shiinaha dhoolatus iyo carbis la yaab leh hogaamiyaha dalka Waqooyiga Korea iyo Vladimir Putin ay qayb ka ahaayeen uu ku micneeyo Trump inay tahay shirqool iyo dhakrid loo sameynayo dowladda Mareykanka. warkan ayaa waxaa la leeyahay oo ay loo gudbiyo wakaaladda wararka ee taas ee dalka Ruushka. waxaa suuragal ah qodobada ugu muhiimsan ee laga fahmi karo in ay dhinacyadan soo bandhigeen waxaa ka mid ah Kremlinka inuu aqbalay kulan markale la abaabulayo oo ay si degdeg ah u yeelan karaan Trump iyo Putin, waxaana tusaale loo soo qaatay in la taxraaco waxyaabihii laga xusay kulankii Alaska ee muhiimka ahaa. Trump ayaa isna sheegay in uu la hadli doono Putin dhawaan, taas oo xoojinaysa suurtagalnimada kulanka soo socda in ay tahay mid muhiim ah. afayeenka Kremlinka Dmitry Peskov waxa uu leeyahay xiriirka wada shaqayn oo wali socda taas oo muujinaysa in ay muhiimad dheeraada u leedahay. falanqeeyaashu waxay tilmaamayaan warkan inuu muujinayo in xiisad cusub ama sii socoshada siyaasad laga dhaxli karo labada dal in ay muujiyaan hogaamin wanaagsan. Trump ayaa dhowr jeer oo kala duwan isku dayay in la soo gabagabeeyo colaadda ka taagan waddanka Ukraine xilli wadamada gaashaanbuurta NATO ku midaysan ay aad uga baqayaan gantaalaha Ruushka ee ku foorara kuwaas oo la sheegay in 10 daqiiqo gudahood ay ku gaari karaan qaybo ka mid ah waddankaasi ama wadamada Yurub. dowladda Jamhuuriyadda Islaamiga Iran waxa ay kulan la qaadanaysaa mas'uuliyiin ka socota hay'adda atomikada ee Jamciyadda Qurumaha ka dhaxaysa kadib markii labada dhinac dhowr jeer oo hore ay ismaandhaaf soo kala dhaxgalay. dowladda Iran ay ku dhawaaqday inay xiriirka u jarto wada shaqayntii hay'addaasi ay la lahayd. dowladda Iran ayaa maanta shaacisay oo Jimco ah in magaalada Vienna ee caasimadda waddanka Austria ay kula kulmi doonaan mas'uuliyiin ka socota hay'adda caalamiga ee tamarta adduunka ee IAEA loo soo gaabiyo si loo gaaro qaab cusub oo iskaashi ah oo labada dhinac u wada shaqayn karaan iyadoo la raacayo sharciyada cusub oo ay ansixiyeen hay'adda sharci dejinta waddanka Iran, taas oo ay ku tilmaameen inaan la aqbali karin hanaanka hay'addaasi u shaqaynayso. Reza Najafi, wakiilka joogtada ah ee Iran ee u fadhiya xafiiska qaramada midoobay ee Vienna, ayaa sheegay in kulanka uu noqon doono mid qubro u dhaxeeya labada dhinac isla markaana uu yahay qayb ka mid ah wada hadallo hore u socday oo ku aadan xadeynta ama qeexidda habka iskaashiga ah ee labada dhinac. xaaladda siyaasadda iyo xiisadda sharciyadeed ee labada dhinac ayaa waxay tahay mid baarlamanka waddanka Iran uu ku lug yeeshay. 26 bishii Juun ee sanadka 2025 baarlamanka Iran ayaa meel mariyay sharci cusub oo lagu joojinayo iskaashi ku meel gaar ah oo lala leeyahay hay'adda atomikada adduunka iyadoo lagu eedeeyay hay-addaasi inay ku lug lahayd falal basaasnimo ah iyo adeegida duqeymaha ay Israa'iil iyo Mareykanku ku qaadeen gudaha waddanka Iran. sharcigan oo ay ansixiyeen sidoo kale golaha ilaalinta dastuurka ee dalka Iran waxa uu xadeynayaa qodobada hoos ku qoran in la xoojiyo gelitaanka kormeerayaasha hay'adda atomikada ee gudaha Iran, in la hakiyo dhammaan howlaha kormeerka iyo weliba hubinta barnaamijka nuclearka iyo in la jaro xiriirka tooska ah ee lala leeyahay agaasimaha hay'addaasi Rafael Grossi oo lagu eedeeyay inuu yahay nin basaas ah oo si weyn uga soo horjeeda waddanka Iran. xaalad military oo cusub ayaa laga baqayaa xilli wada hadalladan la filaya inay sii socdaan. dowladda Iranna waxay ka baqaysaa in mar kale duqeymo ay kala kulanta dhinacyadii hore u weeraray. wada hadallada cusub ayaa imaanaya kadib markii xiisadda military oo xoogan oo u dhaxaysa Iran iyo Israa'iil ay socotay laga bilaabo 13 Juun ilaa 25 Juun sanadka 2025 oo loo yaqaano dagaalka 12 maalin oo ay Mareykanku taageereen duqeymaha ay lala beegsaday xarumaha kala duwan ee Iran. go'aanka ciidamada iyo xarumaha nuclearka ayaa weli yaala iyadoo dilal qorshaysan lala beegsaday saraakiil sare iyo saynisyahano Iiraani ah. hay-addan atomikada qaramada midoobay waxyaabaha lagu haysta waxaa ka mid ah in aanay dhaleecayn dilka iyo weerarka ama dilka saynisyahanada iyo weerarka lagu qaaday gudaha waddanka Iran.
akhyaarta nala socota ay tabinta qaybtan iyo qubanaha Barrow Show-na intaas ayaan ku hakinayaa si aad macluumaad u heshaan ku soo biira YouTube-ka oo subscribe saara nabadgelo Ramas Hotel and Restaurant waxa uu leeyahay adeeg dhameystiran waxaana ku diyaara qolal jiif oo heer sareeya hoolka aroosyada iyo shirarka maqaayad furan 24 saac oo leh raashin dheef iyo dhadhan macaan internet xawaare sare leh wiish iyo amni joogto ah Ramas Hotel waa doorashadaada ugu fiican waxaana uu ku yaalaa Bakaaraha agagaarka isgoyska Carweydka